ugu horeyn walaal waxaa kusoo dhawaataa website-ka caalamiga ee Radio Israel adigoo ku bilaabaya magacaaga. walaal magacaygu waa Xasan Cabdi Cali waxaan ku xirnay jasiiradan Shalis muddo 6 sano 2011 dabayaaqadeedii baa halkan la keenay waxa la iga soo qabtay biyaha Soomaaliya meel ah oo wax la yiraahdo aan kala shaqeynay aan saarnayn halkan la keenay maxkamad baa la isaaray waxa la yiraahdo 24 sano ay xukuntay walaal sidii baan halkan ugu xirnahay dhibaatooyin badan waa kala dirisnay qarnawi oo rag badan ah kaligay ma ahan ragii la socday iyo kuwa naga horeeyo meesha ku xirnaa muddada inta yar leegna waan ku xirnaa walaal gacaliyow waan ku dhibaataysanaa aad baan ugu dhibaataysanaa waxaan ku xirnahay 20 baan hadda xabsiga ugu xirnahay markii hore halkee laga soo qabtay waxa laga soo qabtay xeebta Soomaaliya meel 10 kiiloomayl u jirta camal sababaha lagu soo qabtay ama lagu eedeeyay markii maxkamadda lagu saaray maxaa kamid ahaa sababaha lagu soo qabtay waxay ahayd in la yiri waxa lagaaga shakiyay burcad badeed ma burcad badeed baa tahay ma ahan waxa weeye burcad badeed baa lagaaga shakiyay maxkamadda dacwadeeda waxay ku qaaday in burcad badeed la iga shakiyay lawyer baa la ii qabtay dacwad ooga la keenay marqaatiyaal beenaha la keenay 24 sano la xukumay 24 sano charge-kii xukumayay wuxuu igu xukumay wax cadayna kuguma hayo laakiin adduunkan ku qancinaya 24 sano inaan ku muddo waxaad ii sheegtay 6 sano inaad ku jirtay xabsiga wax ehel iyo qaraabo ah ma ka warqabaan in aad ku jirtay xabsiga Shalis ku yaalo familkaygu waa ka warqabaa xabsiga Shalis inaan ku xirnahay oo familkaygu waa ka warqabaa waan la hadlay laakiin meeshan waxaanu ku xiranahay rag tiradii ka batay baanu nahay oo Soomaaliyeed muddada meeshan ku xiranahay hatta familkayga nooma iman karaan lama soo booqan karaan qofkii Soomaaliya meeshan yimaado wuxuu ka yahayba qof waxa la yiraahdo dadku waxay u qabaan inay yihiin horor dadka cuna ma garat bal waxa sharaxaad ka bixisaa dhibaatada uu xabsigu idinku hayo dhibaatada xabsigu walaal nagu hayo waa dhibaato nafsaaniye xag caafimaad xag waxa la yiraahdo daryeel xag waxa la yiraahdo bini'aadantinimo xag dhaqan meesha taagantiin waa Shalis baan ka hayo qof alla qofkaan yiraahdo waxa la yiraahdo ka tiraado war xanuunkaaga ma aqaan Shalis baa taastay barbarastimoolka qaado si xulay nolosha xabsigu walaal gacalay waa nolol xabsi qof xiran oo xabsi ku xiran oo qofku haduu xorriyadiisa waayo waxa nolosha qofka ugu qaalisan waa xorriyadiisa dhibaato xabsi uu leeyahay waxa weeye waanu haynaa hadii ay tahay waxa la yiraahdo bahdilaad aan ku bahdilanahay hadii ay tahay waxa la yiraahdo midabta koor aanu ku midabta koorno leeyahay waxa la yiraahdo Soomaali baa tihiin oo adduunka barkaba tiidinin dhibaatada noogu sii daran waxa weeye qolooyinkii UNODC oo meeshan keenay ayagii ma nooga sii daran wax la yiraahdo dadkii dalkan u dhashay dad lacag lagu qaato maanahay oo laga kala ganacsado oo dushoodii lacag lagu qaato qofkii Soomaaliya oo meeshan la keeno waxa la yiraahdo wuxuu ka yahay dheeman meesha yimid gaala cadaan noo timaado sawirro iyo waxa naga qaadaa fiidiyoyo waxa la yiraahdo dhaqaalaha lagu siiyaa dawladda tan dadkan meesha isaga xiran annagana wax daryeel iyo wax baakiya midna kuma haysano ciddii Soomaali ah oo noo timaado oo wasiirro iyo baalkii ah meesha inta sida ka inoo yimaada markaan dhibaatadeeda u sheegano maba moodidba kuwan u sheegnay halkaas ay lacag inta ka qaataan UNODC ay iska tagaan kuwa kulleeday xabsiga oo lagu laayay kuwa badal lagu laayay oo Shalis ku laysay kuwa waxa la yiraahdo la saabeenayay gabigoodiba inta la laayay aan waxa la yiraahdo ciidamo meel ka soo qaadin kuwa iyagoo waalan jooga xabsiga waxa la yiraahdo jirdil iyo dhibaato loo geysto ugu waalan ma garat waa gartay dhibaatada lixaad kale weeye dhibaatada xabsiga naga haysata nolosha xabsigu waa taas dawladii Soomaaliya waqtigeedu dhamaaday wax arintaas ay wax ka ogeyd ma jirtaa dawladda Soomaaliya meeshan waa yimaadeen xeeryaalaha qaranka noogu yimid wax uu noo qabtayna male hatta meeshan wiilal laga sii daayay oo xabsigoodii dhamaystay oo Soomaaliya ka degay waxa la yiraahdo airport Muqdisho laga dajiyay wuxuu yiri annaga Shalis ka soo daynay 2 nin iyo wax noocaas ma ahan xukunkoodii dhamaystay bulshada Soomaaliyeed wuxuu u bandhigay in iyagu xabsiga ka soo daayeen mana ahayn waxa la yiraahdo iyagu xabsiga ka soo daayeen
dhalinyaro xabsigoodii dhammaysatay baa hayr xukun yar xukunaa ragga meesha ku xiran xabsiya dhaadheer baa la xukuman yahay 24 sano da-da iyada iyo xabsigaan xukumanahay baa badan ma garat wasiiradii Soomaalidu noogu yimid meesha nacfi baynu dhaafsadeen naga lex jeclaysteen dhalinyaradii la laayay oo xabada lagu laayay ma ayna fiirin kuwa xabsigan ku dhintay ma ayna fiirin kuwa gacmaha go'an oo shiishars gacmaha goysay waxa la yiraahdo xabada ku goysay ma ayna fiirin kamana ayna hadlin waxa la yiraahdo cid kasto cid waxa la yiraahdo meesha ugu yimaado oo loogu timid wax asxaana iyo wax baalkii midna nooma ayna sameeyeen kii ugu dambeeyay xiraalyaha qaranka Axmed Hebelkii hadda ninka la leeyahay buu ahaa waa ninkaas dhalinyaraha halka inta laga sii daayay muqdisho loogu geeyay yiri anaga xabsiga ka soo daynay dawladda shiishars kala hadalnay idaacadda qaranka kala shiishars buu noogu yimid shiishars markuu noogu yimid ka bacdi dhalinyaro oo isagu u tagay Soomaaliya u tagay dhalinyaro meeshan laga sii daayay aeroboortka Muqdisho ka degtay wuxuu leeyahay TV-ga qaranka wuxuu ka yiri dhalinyaradan anaga waxa la yiraahdo markaan shiishars tagnay maana dawladda shiishars kala hadalnay waxa la laba nin iyo wax noocaas maahan inta kale anaga ka soo daynay oo meeshan keenay shacab weynaha Soomaaliyeed bay waxa uu sheegay in TV-ga qarankana laga sii daayay waa noocaas waxa la yiraahdo dawladda hore waxaan waa kii xiraalyaha qaranka weeye waxa sax ku hadlayay ee meeshan loogu yimid arkayna dhibaatada meeshan ugu haysata ummadda Soomaaliyeedna warkaas u gudbinay oo lahaa waxa la yiraahdo dad baanu kala hadalnay waxaad ii sheegtay muddo 24 sano ah in bilaa sharci lagu xukumay iyo waa laga shakiyay kaligay maahan 24 sano wax xukuma rag badan baa xukuman oo dhalinyaro ah 24 sano 14 sano 18 sano 12 sano 30 sano baa la wada xukuman yahay waxa la yiraahdo hadde aan raacsan lahayn wax raacsan ma leh dusiba meeshan lagu haysto lacag lagu bixiso wax la yiraahdo lagu qaadato caalamka nooga qaadata loo yarada yadii baan gatay oo lacagna siistay dacwad oogayaasha dacwadda lagu oodaya iibsanaa oo lacagna siistay taarkiina xukumayay baa iibsanaa oo lacagna siistay marxaatigii beenta ahaayeen la keenay baa lacagna siistay oo iibsaday ma garatay marxaatiba laba keenay waxa la keenay tuugi anaga biyaha iyagii joogna kulumaysanayna soo qabtay baa la keenay tuugu waxa weeye maraakiibtan badda Soomaaliya ku jirta ee yiraahdo badaha Soomaaliya waardiyeynaya jiriifka ah oo waxa la yiraahdo sanad kasta qaata $3 million iska khayraadka badda Soomaaliya kala baxa bal waxaad iiga warantaa dareenkiina ku aadan sida aad u aragtiin xabsiga inta dheerarka la-eg ee lidinku xukumay bilaa sharciga waxaan u aragnaa xuquuqdayada in la duudsiyay sharci darrana nala ku haysto sharci darrana nala ku xukumay lama dhaqnay sida dad aan dad balahayn aan dal lahayn dawlad lahayn dunidaba aan waxba ku lahayn ugu dambeyntii maxaa dawladda federaalka Soomaaliya ee hadda talada hayso madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha ka yahay iyo beesha caalamkaba ugu baaqi lahayd ama ka codsan lahayd horta beesha caalamku waa mid meeshan lagu haysto dhibaatada lagu geysto UNODC mas'uulka ka dhigatay dawladda Soomaaliya baaqa u gudbinayna waxa ay weeye dhalinyaro Soomaaliyeed baan nahay sharci darra shiishals nolo ku haysta nolo ku xukumay xabsiya dhaadheer dhibaatooyin badan baa nolo ku geystay oo nafsaani ah xuquuqdayadii baa la duudsiyay kuwa waxa la yiraahdo qabuuraha ku jira oo la yiraahdo hataa muslim qabuurta muslimka lagu ma aasi kare meelahaas waxa la yiraahdo lagu aaso shiishals ay laysay oo iyadu ay laysay kuwa gacmo go'an oo iyadu ay laysay xuquuqdooda cid u hadashay aysan jirin baa jooga kuwa maskaxda ka waashay baa jooga oo waxa la yiraahdo sidii loo dilay waashay markay soo qabanayeen dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa mowduuciyagu uu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed baan nahay oo ku dhibaataysan meeshaas dhibaatada lixaad kalena loo geystay sharci darradana lagu haysto daddoodina maalin kasta la wax la yiraahdo la jiriifayo magac gooniyana loo bixiyo la yiraahdo barcadbadeed weeye waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa annagu ma aan ihin barcadbadeeda runta waxa weeye kuwa badayada jiriifaya maraakiibta dagaalka ee shaarka huwan markab dagaal ee ah kuwa jiriifka ah ee badayada jiriifaya ee dadka iyaga ku leynaya biyaha badda dhexdooda ee maalin kasta dhibaatada iyo hoog iyo hantoonida ummadayadii baday inaysan wax Soomaaliya aysan ka kalumaysan biyaha Soomaaliya kuwaas weeye kuwa barcadbadeeda ah badeena jiriifaya ummadeena inay leynaya dawladda Soomaaliya waxa ka codsanaynaa dhibaatada wax la yiraahdo na haysata madaxweynahan qaasatan la hadlaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
iyo wasiirka koowaad iyo dowladda cusub ay soo dhisi doonaan iyo golaha baarlamaanka hanala ka soo gaaro harana waxa la yiraahdaa nala ka badbaasho dhibaatada nagu haysta xabsiyada adduunka iyo kuwan shiishalis iyo India iyo Kenya iyo imaaraadka carabta iyo Sacuudiga iyo meel kasta Mareykanka Soomaalida dhalinyarada isaga dhibaataysan kuwa xabsiyo life xukuman dalkii Soomaaliya gudihiisa baa dhalinyarada ku xukumantahay ku xirantahay iyadoo aan racfaan lahayn oo 24 sano iyo 30 sano xukuman yihiin dowladda waxaanu leenahay hanna loo garaabo hanna la ka dhibaatada hanna la ka saaro dhalinyarada waddankaynu nahay xuduudda dalkaynu nahay berri kuwii loo caban lahaa baynu nahay dalka wax tari lahaa waxa la yiraahdo madaxdii berri baynu nahay manihin waxa la yiraahdo waxa la sheegayo mana aan geyno ma garata dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa hanna la ka qaado shiishalis hanna la ka qaado Hindiya hanna la ka qaado Kenya dalka iyaga hanna la geeyo xorriyadeeda dib inoo ku celiyo aabayaal baynu nahay dhalinyaraynu nahay caruur baanu leenahay xaaladda Soomaaliya waa ka warataan dhibaatada ka jirta waxa la yiraahdaa ilmaha iyagii aabbo male hooyana male waa ilmaha aabbahood noqon yahay hooyana male habartii baa waxa la yiraahdo la hoogto la baaday waxaanu marka dowladda Soomaaliya ka codsanayna waxa weeye meeshaan in la ka soo gaaro nala ka saaro dalka iyagii dadka iyagina dib loo ku celiyo xorriyadeeda sidaan ku heli lahayna laga shaqeeyo aad baa mahadsan